الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعين سلامي حبيباتي سلام قالئة بعد السلام كسو دوادا channel كينا مروي ستار كوكين maanta hadduu rabbiga raxmaanka ah idmo waxaa rabaa inaan la wadaago alaab yar oo wajiga ani amarsanaayo in la jeclaystin adinkana in la wadaago sida caadatan in soo gelin jiray inaad ka faa'iideysataan. soo marka xagan waxaan ku haystaa argan oil waaye iyo sokorta oo brown sugar waaye. xagan caana igu jiro, caanaha in yar igu jirto, sonkorta xataa waa in yar qaadada yartaa. xagan waxa ku haystaa baradhada maxay ahayd waxaan ka soo qaaday qolofka sare. marka waxa ka bilaabaneynaa hadduu rabbiga raxmaanka ah idmo sonkorta iyo waxaan rabaa saliida inaa wejigayga aan ku scrub gareeyo oo wasakhda saaran madmadowga daalka waxaas dhan iyo maxay jildil mayidka jirka oo dhintay inaa iskaga clean gareeyo. marka maxay ahayd saliida haysta isticmaali kartaa, khasab ma aha inaa argan oil haysato. ani hadda argan oil haystaa. soo marka aad midda haysato isticmaali kartaa, waxa uu mushkil ma lahan. saliida oo qumbaha isticmaali kartaa, waxa isticmaali kartaa zayd zaytuun ya wixii gurigaaga mar waliba yaala isticmaali kartaa, qasab ma ahan. tan aniga isticmaalaa ina isticmaashaan. xagan waxaan ku haystaa brown sugar-ka aad ugu fiican tahay wajiga maasha Allah. marka alaabta waxay naga caawinaysaa wajiga wasakhda saaran in maxay ahayd naga clean gareyso oo wajiga ay ka dhigto kaala araga ku dhahay. wajigaaga markaa ku scrub gareyso wajigaaga dhan uu dhaldhalaalaya maasha Allah, wuxuu noqonayaa nadiif qurux ya madmadowga waxa saaran daalka waxaas dhan way ka ba'ayaan. soo alaabta aad u fiican tahay. marka hadda intaan waa qaadanayaa saadaba u jeedaan wajigayga soo marinayaa. marka waa kaas maxay ahayd sonkorti sa u jeedaanba saliida inay igu yar tahan dareemaya. soo marka saliid yaran ku darsaneynaa. argan oil maasha Allah haddaa haysataan caadi ma ahan, marsada wajiga xataa ayadoo timaha ah aad u wanaagsan tahay argan oilka. marka hadda waxaa sameynayaa waa qaadayaa alaabtan wajigayga marinaya, waa ku scrub gareynayaa saasa ku dhahayaa si tartiib ah wajiga ugu masaajeynaya. adi ilaa 5 daqiiqo wajigayga ku masaajeynaya si yar oo maxay oo raaxo ah oo qafiif ah. yani wajiga marka wax marinayso inaa xoog isticmaasho lama raba. hadii aad xoog isticmaasho de wajiga uu ka kadkadudanaya uu ka halaabaya. soo anaga dhanba inaa yaraana aan jecelnahay soo maahan aan ya baby face haysano. mar wali marka wajigaaga wax marsanayso si yar oo tartiiba u mari insha Allah. marka hadda alaabtaan wajigayga marinaya maxay ahayd adi waxaan ku joogayaa 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo dan biyo yar iska soo raacina. haddana waxa sameysanaynaa qaybteenan kale taagaleynaa biidni raxmaan. isku soo laabaneynaa marka xabiibaati waa isku soo laabanay. sonkortii iyo saliidaan isku daraayay wajiga soo marsaday maasha Allah, waa iska soo dhaqay wajiga dhan waxaan ku dhahay naacim uu noqday ya nadiif wasakhda saarnayd daalkii waxaan ku dhahay maasha Allah tartiib u baxay alxamdulillah. qaybteeni xigtaan galeynaa. marka xaga waxaan ku haystaa waa baradhada qolofkan ka soo qaaday. waxaan ku hoolayaa kan oo waxyaabaha qudaarta iyo waxaas lagu hoolo. soo marka dhankan waaweynka isticmaaleyna insha Allah. bismillah daa'iman wa abadan. karootadii karootay aanan dhihin maxay ahayd baradhadii waatana waa soo hoolisa u jeedaanba. waxa ku darayaa marka caano waaye, caanaha caadiga ah
yogurt ma aha waa caanaha caadiga ah marka waxaan sameynayaa wax yaraan dhigayaa inta oonan wajigayga marinin ka hor maxay ahaydee adi 5 minutes meel dhigayaa si karootada dheecaankeeda iyo caanaha ee si fiican maxaa la dhahaa u falgalaan marka 5 minutes meel dhigaa 5 minutes kadib marsanaysaa aniga hadda saas marsana insha Allah marka alaabtan waxay ka caawinaysaa marka soo sameyso scrubka oo sonkorta aan ka sameeyeen iyo saliida marsanaysaa oo wajigaaga wasakhdii dhan ka soo qaaday jildil mayidkii jirkii dhintay marka alaabtan marinaysaa waa marka alaabtaasna waa ka soo dhaqaysaa marka ka soo dhaqdo oo wajigaaga soo qalajiso intaana soo qaadanaysaa insha Allah marka alaabtan waxay ka caawinaysaa ayadana jirkaaga wajigaaga hadii uu haysto nabra ka soo bixeen oo nabrii wajiga ay kugu madmadoobaadaan waa aragteen marka uu jirka nabra ka soo baxo wuxuu nabrii kugu reebanayaan madmadow ama ani hadda nabra ma haysto sababta umarsanay waxay tahay yani wajigayga inay maxaa la dhahaa wasakhda saaran dead skin-ka inay dead skin-kaas iga clean gareyso jildil mayidka ama jirka oo dhintay mar waliba jirkaaga daada nadiifin jir dhinta ku soo saarmaayo soo marka waxa loo baahan iska nadiifiso marka waxyaabaha saaraba in iska nadiifiyo iyo waxay kale ka caawinaysaa qoraxda waa aragteen qoraxda jirka way madoobaysaa oo jirka waxay ka dhigaysaa like inaad daalan tahay camal oo kale jirkaaga ka dhigaysaa marka waxyaabaha saaraba in iska clean gareeyo waxyaabahaas oo madmadowga baradhada ka qaadaysa wixii madow hadii haar haysato xataa baradhada waxay number 1 ka tahay waxyaabaha oo madmadowga la dagaalamo sida haarta oo kaleete iyo indhaha hoostooda hadaa ka madowdahay ani hadda indhaha hoostooda wax yar ka madowaa way habeenkii dhafraa baby yaris haystaa oo maxay ahayd umula ahay soo marka umulta waa aragtay habeenkii babyda maseexanayaano waa soo kacayaan marka indhaha hoos waa ka madoobaanaysa indhaha waxa hoos looga madoobaada in habeenkii aad dhafarto aad soo kacdo ama maxay ahayd inaad biyo badan cabin ama in ironta kugu yar tahay ama ina qof aad tahay oo sigaar iyo maxay ahayd cabo saasay indhaha hoostooda dadku uga madoobaadaan marka ani hadda wajigaan ku qabanaya waa marinaya insha Allah alaabtan waxaan ku joogayaa haduu Ilaahay yiraahdo adiga ilaa 10 minutes marka marsanaysidna way ka dhacdhacaysaa soo uma jeedaan way dheerta waxa fiican adigoo aan shaqahaynin oo maxaa la dhahaa tartiib inta meel yar seexato wajigaaga saarto 10 minutes 5 minutes sida adiga time u helayso waa uga hooyooyin aan nahay caruur baan sugayso soo marka qof waliba sidoo time u helaayo inuu marsado wajigiisa oo maxay ahayd uu ku nasto xataa habeenkii marsan kartaa marka caruurta iska kala seexiso hadii maalintii aad shaqahayso muhiim waaye in jirkeena ka shaqeeyno oo korkeena ogaano anagoo maxay ahayd reerkeenana time gelinayno caruurteena xaajiyadeena maxaa la dhahaa yani xaajiyaasheena ka wada jamac dadka dhan aan ka hadlayaa oo ayagana time gelinayno iyo reerkeena wax waliba qabanayna hadana waxay tahay in anagana aanan ishilmaamin oo ayna maxay ahayd aanan isdhiganin oo aan iska shaqeynaa ma sha Allah marka waxaan ku dhahay hal iska shaqeey ma sha Allah in wax la marsado qasab waadi aad wax aadan marsanin oo aad jirkaaga ka shaqeynin yani jirku ka halaabaya oo maxay midabkaaga aheena ku soo koraayo wasakha ku soo korayso jirka waxa ku aruuray maxay ahayd jirkaas dhintay dead skin-ka oo jildil mayidka saa u taqaanan ama jirka dhintay ab soo korayaan marka waxay tahay waa ina fara isku haysaa mar walibana waa inay dardaarmaha waana in dhahaya biyaha badan in la cabano waa muhiim biyaha jirku ku qurxinaya waa aragteen dhirta markii biyo lagu shubo sida u qurux badnaanayso hadii aad biyo aad ku shubino way fool xumaanaanaysaa waa aragteen oo way dhimanaysaa anagana sidoo kale taanahay waa inaan biyo badan cabnaa waa ina qudaar cunaa iyo cuntooyinka fiican oo jirkeena qurxinaayo marba hadii haween tahay siraa ku siinaya wax waliba oo yellow aragto cun like carrotka oranjiga muxuu ahaa misirta way noocyo badan tahay mar hore wallahi gabar iga soo codsatay 3 gabdhood iyo wiil sida oo misiraha loo kariyo waa inii soo gelinaya aniga iska mashquule hooyo waa taqaanaan marka insha Allah waa inii soo gelinaya biidni rahmaan wax waliba oo oranji cun jirkaaga waxa ku dhaawaa waa ka dareemaysaa ma sha Allah yani jirkaaga uu ku qurux badnaanaya hadana maxay ahayd yarisna oo ekaanaysa anaga dhan waa jecelnahay hadii run loo isku sheego
in maxay ahayd ayaraano marka dashantaada waqtiga salaada aad dukato oo weysa qaadato oo waxyaabahan amarsato oo cunto healthy ah cunto ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا كام قروح بدنا عندنا محي هذا كام نظيف بدنا وكام دلال بدنا marka waxyaabaha kiimikada hal iska daayo كريمها كيميكada hal iska daa hadii cream marsanayso yes cream oo herbal marso ama cream oo aan kiimika ku jirin waxyaabaha marsada ma sha Allah iyo saliidooyinka ma sha Allah saliidooyinka walaa khayr aadi way faa'iidooyinkooda kuwa badan hadda way duuban yihiin insha Allah waa inii soo gelinayaa biidni Rahmaan marka gacmaha la isku haayo hala iska shaqeeyo insha Allah in la iska shaqeeyo khasab waaye hadii hooyooyin nahay fadhiga ka kacna insha Allah anagoo reerkeena wax kasta u qabanayna saa hor in igu soo sheegayba annagana iska shaqeeyno maanta maxay ahayd warka ay ku badiyo war badan animaada igu baranina wax yar leeyahay hadla fiidiyodeedu way yar yihiin marka raali iga ahaada marka waa marsanaya alaabtan ya had inta hadlaaya 5 minutes ka badan waa marsana insha Allah 5 minutes meel seexanaya dan waa iska dhaqaya markii aan iska dhaqo insha Allah waxaan sameeynayaa maxay ahayd waxaan soo qaadanayaa rose water ka cidi ila socod oo rose water ka oo ka sameysata baraf ama maxay green tea oo ka sameysata baraf amarsanaysa ani marka hada rose water no iyala green tea oo baraf ino iyala khayaar oo baraf ino iyala cucumber ka oo qajaar marka mid ka raba soo qaadanayaa aan wajigeygana maxaa la dhahaa ku scrub gareynaya si raaxo ah oo marinaya mar walibana sameeysta barafyadaas waa ka heli doontaan xaqiiqatan oo marka wajigaaga waxa ka meerto waa marinaysa ma sha Allah kala aragan ku dhahay marka alaabtan sahori inuu soo sheegay wajigiina wasaqday ka qaadaysa hadii ahaar haysato hadii indhaha hoostooda ka madoodahay hadii aad madow kala haysato hadii aad waxas dhan aadan haysanin oo aad rabto wajigaaga inuu faxfax noqdo isticmaal marso insha Allah waa inii soo gelinaya maxaa la dhahaa waxyaabo badan oo face-ka ku saabsan horena waa u soo geliyo qof waliba kii anfaco insha Allah ha marsado waxaana marka amarsanaysan please time siiya ina kan bilawdo oo hadana aad ka boodo ku kala bilawdo ma arkaysid maxay ahayd natiijadii iyo faa'iidadiisa waxa waa inaad time siisaa marka time siiso hadda kan aan sameeynay amal aad waqti geliso aad waqti siiso markaas maxay ahayd aad arki kartaa faa'iidadiisa laakiin hadii aad kan intaas marsato hadana biri ku kala marsato de ma soconayso marka khayri baraka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iniga rajeynaya aad iyo aad idinku mahad celinaya meel waliba aad joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha in xifdiyo qof waliba meesha uu ku oomiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka baar hitiro waxaa in leeyahay fi amaanillah ahbaab qalbi insha Allah hadii aad ka heshaan like hadii aad nagu cusubtaan please soo dhaw subscribe ku qaba meesha gaduudan gambaleelkana taabo si aad ula socoto waliba aan soo geliyo si toos ah وجزاكم الله الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله أحباب قلبي.